alla naxariistii jannaha ugu deeqay waxaa aaskaran xabaalaha masallaha magaalada Hargeysa lagu sameeyay marxuum Maxamuud Cabdi Malow oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. marxuumkani ayaa ahaa adoon wanaagsan oo samatalisa isla markaasina ku asteysnaa shakhsi hawlkar ah oo hufnaan iyo shaqo wanaag ku sifoobay muddadii uu siyaasadda ku jiray oo ilaa heer wasiir ka gaadhay. mas'uuliyiintii ka qayb galay aaskan qaran oo tacsi tiiraanyada la wadaagaya qoyskii qarankii iyo shacabka Soomaaliland oo ka baxay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii. maalin jimca oo aad u qiimo badan oo khayr leh ayuu ka baxay adduunyada isagoo muddo aan yarayn jiifay oo u jiifay xanuun. ilaahay subxaanahu waxaan ka baryaynaa inuu xanuunka uga dhigo mid ilaahay kaga daahiriyo dhammaan dunuubtiisii oo dhan. qof bilaadan dib lahayn ma jire laakiin waxaa nasiib badan qofka isagoo oo laga soo jafjafay dunuubtii ilaahay subxaanahu ta'ala u taga. marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu ta'ala ha u naxariisto samiriyan saadiqana ilaahay subxaanahu ta'ala ooridiisii iyo ubadkiisa ka siiyo. maxamuud cabdi malow macallin caana ayuu ahaa dalka wax badan soo taray. shaqadii ugu qiimaha badneed ee macallinimada ahayd buu hayay. muddadii dambena halgankii Soomaaliland iyo runtii dib u dhiska dalka ayuu ka qayb qaatay. wuxuu ahaa wasiirkii hore wasaaradda macaanta iyo biyaha Soomaaliland. ilaahay subxaanahu ta'ala ka abaaliyo wuxuu shaqo soo qabtay oo camal soo qabtay dalka soo qabtay. ilaahay subxaanahu ta'ala ka abaaliyo. marxuumkaasoo muwaadin Soomaaliland waqti wanaagsan dhintay maalin jimca salaadii jimca aan ku tukanay simiriyay Soomaaliland simiriyay iimaan Allah ka siiyo naga siiyo. Allah subhanahu wa ta'ala isagana qabriga ha u wasiyo su'aasha qabrigana Allah ku sugo wanaagsan shakhsiyad wanaagsan oo aad iyo aad waxa kuruumada bulshada dhexdeeda ay raalli ka wada ahaayeen. ilaahay u naxariisto maanta akhru jira ilaahay dambigiisa ha dhaafo. u baryeena inuu ilaahayna kana samariyay ma naga siiyo ubadkiisii ooridiisii ehelkii oo dhan iyo Soomaaliland oo dhan. maxamuud maanta wuxuu ka baxay Soomaaliland marka laga reebo qoyskii uu ka baxay nin qaran buu ahaa. maxamuud asaasayaashii qaranka buu ka mid ahaa. wasiir buu soo maray xilal badan buu soo qabtay. maanta nin ku suntan asaasidda Soomaaliland buu ahaa. maxamuud cabdi malow ilaahay u naxariisto labadoodaba curadkii buu ahaa marka xaqeynimada laga eego. Allah u naxariisto maalin wanaagsan buu go'ay. nin hal khayrana wuu ahaa. nin waddanka in badan u soo shaqeeyay oo ka bilaabay macallinimo ilaa wasiir uu ka soo gaadhay ayuu ahaa. nin aad iyo aad ummadda ilaahay isugu mid tahay oo ku caanbaxay Hargeysa ayuu ahaa. ilaahay jannatul firdawsa ka waraabiyo ubadkiisii iyo ehelkiisiina samiriyay mana ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay jannadii ka waraabiyo sabirna dhammaan ehelada ilaahay naga siiyo. maxamuud cabdi malow jannadiina firdawsana ilaahay ka waraabiyo aamin. bismillaahir rahmaanir rahiim. daaw Cabdilaahi sheegay waxa nin aan aaminsanahay ama rumaysan inuu ahaa nin wanaagsan. waxaad ka garanaysaa aaskiisa maanta sida la isugu yimi. intaan waan ka garanayo sida uu Cabdilaahi qare waxa weeye nin wanaagsan buu ahaa. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannadii ka waraabiyo ehelkiisa asxaabtiina samiriyay ma ka siiyo. waa jimca maalin wanaagsan buu dhintay ilaahay khayr iyo wanaag siiyo. kulli anigu waan maqli jiray in badan ilaahay khayr siiyo isagii caruurtiisa iyo dadkiisa dhan ha ka balmariyo dhammaan qaranka iyo dadka islaamka meel kasta joogan samir iyo iimaan saadiq ah inaga wada siiyo. waa la wada dhimanayaa. walaalkeen maxamuud nin wanaagsan oo afkaaban buu ahaa. ilaahay ha u naxariisto. ilaahay qabriga ha wasiyo qabriga Allah ha u nuuro. innagana ilaahay nooga daba naxariisto. markhaati baynu noo wanaagiisu qofka waxa lagu gartaa baa la inta jinaasadiisa soo raacda. intaasoo kuna qof baynu ugu tukanay. ilaahay qabriga ha u soo wasiyo. u joognay Allah u naxariistee maxamuud cabdi faarax nin weyn oo wuxuu ahaa ka baxay qaranka Soomaaliland. waxaa nin hel khayra wax kale inooga baahnay in u ducaynaa baynu u baahnay. ilaahay samiriye naga haynaga siiyo isagana naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkiisii asxaabtii
وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كان وان كتعسيدين يا قرنك جمهورية سوماليلاند oo dhan waxaan ka taxsiideynayaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay wasiirkii hore mujaahidka ahaa maxamuud cabdi malow shakhsi aad u wanaagsan buu ahaa nin naxariis badan buu ahaa nin dadkoo dhimuusimayeen buu ahaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannatul firdawsa geeyo